bismillaahi raxmaani raxiim kulan wanaagsan qodobada ugu muhiimsan wararka Soomaalida iyo caalamka waxaa ugu dooron 60 qof ayay tirada gaartay dadka cudurka coronavirus-ka oo ku soo ritay gudaha Soomaaliya 750 kamida dadkaas waxay ku sugan yihiin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho cabsida waa ay sii korortay iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya loo jeedinayo eedeymo culus oo ku saabsan la tacaalida cudurkan shirqool Sheekh Shariif Sheekh Axmed weli loogu maleegay gudaha magaalada Muqdisho ciidamadii ugu badnaa oo hoygiisa la geeyay saacadii la soo dhaafay hal mid ayuu ku taageeray dawladda dhexe hal midna waa uu kaga soo horjeesaday shirki jaraa'id ee habeennimadii xalay uu hoygiisa ku qabtay gudoomiyaha xisbiga himilo qaran ayaan faahfaahin idinkaga haynaa madaxweynaha dooran ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ugu dambeyn magacaabis sameeyay xilli weli uu xilkiisa si rasmi ah aan loogu caleemo saarin xubnaha la magacaabay ayaan magacyadooda idiin haynaa 8 sano oo xiriir hoose ka dhaxeeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Madoobe iyo dawladda Kenya siraha la helay iyo waxa hadda uu ku dambeeyay macaamilkii saaxiibtinimadii muddada dheer soo jirtay amar uu bixiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeerre oo wasiirka amniga Maxamed Abuukar Ducaale Islow uu degdeg u aqbalay iyadoo mas'uul xilka laga xayuubiyay uu diiday shaqo ka tagista madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo booskii uu ka dhintay gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdi Salaan Guujir shaqsi cusub u magacaabay qodobka dibaddana hadduu Ilaahay raalli ka noqdo waxaan idiin haynaa Sacuudi Carabiya oo mamnuucday warbaahinta dalka Turkiga inay ka howlgalaan gudaha dalkeeda u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan hadduu Ilaahay raalli ka noqdo waxaad nagala socotaan shabakada wararka maanta taariikhdu waxay ku beegan tahay 14 bisha afraad ee Abriil sanada 2020 waana talaado warkii oo fidsan waa hagaag warbaahinta wararka maanta ayaad la socotaan bal markan madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu ka hadlay shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Muqdisho habeennimadii xalay shirkiisa jaraa'id wacyigelin ayuu u badnaa dawladda wuxuu ku amaanay dadaalka caafimaad waxa uu sheegay Sheekh Shariif in looga baahan yahay dawladdu inay la timaado falsafad aan hadda sida ay wax u socdaan ahayn iyadoo uu sheegay in dadaalka dawladda lagu amaanin karo marka la eego taxadarka iyo bulshada sida ay ugu dadaalayso dhanka caafimaadka wuxuu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ka digay in la siyaasadeeyo oo cudurkaas laga faa'iideysto arrimo dana siyaasadeed iyadoona shirka jaraa'id uu ku qabtay gudoomiyaha xisbiga himilo qaran ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed hoygiisa magaalada Muqdisho ay soo baxeen warar kale oo sheegay in ay jiraan shirqoollo iyo waliba dabinno culus oo dawladdu ay weli la rabto Shariifka waxaa laga dhadhansan karay sida dawladda dhexe ee Soomaaliya ay isugu xilqaamayso ka hortagga cudurka marka laga soo tago Shariifka oo mucaaradka dawladda nabad iyo nolol kamid ah haddana waxa uu muujiyay sida uu garab joogo dawladda maadaama madaxweyne xil ka soo qabtay dalkan uu yahay Shariifka ayaa waxa uu sheegay in kulan ay yeesheen madasha xisbiyada qaran ayna ka wada arrinsadeen arrimo dhowr ah isla markaana ay iskula afgarteen in doorashada aan dib loo dhigin mucaaradka dawladda Soomaaliya waxa ay ka digayaan oo ay diidan yihiin ilaa xad inaysan doorashada waqtigii loogu talagalay kadib dhicin iyagoo sheegay inaysan marnaba ogolaan doonin in marsiyo lagaga dhigto caabuqa coronavirus-ka sidaas oo kale waxaa jira talooyin ku aadan beesha caalamka oo madashu ay soo jeedinayso ah in la helo agabkii loo baahnaa sida agabka baarista dawooyinka ka hortagga iyo dawooyinka kaalmeynaya qofku inuu bogsoodo in loo helo dhaqaale maxaa yeelay waxa la socotiin cudurradan oo kale waxay saameyn ku yeeshaan si xoogan dhaqaalaha marka dadka Soomaaliyeed meel joogaan bay in loo helo dhaqaale lagu caawiyo xaaladda adag ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed talooyinka ku aadan bulshada guud ahaan waxa kamid ah inay badiyaan faradhaqa inay dhaqan galiyaan talooyinka dhaqaatiirta inay dhaqan galiyaan sida kala fogaashaha in ay ku dadaalaan beeqaaminta waxyaabaha la haysto ama dawooyin ha noqdaano ama raashin ha noqdaano ama
dhaqaalaha la hayo maxaa yeelay ilaahay anaga dulqaada laakiin lama yaqaano inta cudurkan oo soconayo lama yaqaano marka dadka Soomaaliyeed inay dhaqan galiyaan talooyinka dhaqaatiirta cudurkan waa aragtiin adduunka oo dhan ayaa ka qaylinaya marka inaan iska madax adeegno macna ma sameynayso talooyinka in la qaato talana waxa ugu fiican midda ka hortaga dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ay jiraan kiisas kuwii ugu badnaa oo cudurka coronavirus laga helay gudaha Soomaaliya wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa waxa ay sheegtay oo ay xaqiijisay in dalka Soomaaliya laga diiwaan geliyay 35 xaaladood oo cudurka COVID-19 ah 24 saac u dambeysay waana tiradii ugu badneed ee 24 saac gudaha la diiwaan geliyay 32 kamid ah xaaladaha cusub ee cudurka COVID-19 waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho laba kamid ah waxa la sheegay dadkaas inay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa Boorama ayaa qof ku sugan yahay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Fawziya Abikar waxa ay warbixinta maalinlaha ahayd ee arrimaha COVID-19 ku sheegtay in xaaladaha soo kordhay ay tirada guud dadka la diiwaan geliyay ka dhigayso 60 qofood sida ay sheegtay wasiir Fawziya 250 kamid ah dadka bukaanada xaaladooda caafimaad aad ay u wanaagsan tahay waxa ayna ku karantiilan yihiin beetir guryahooda saddex kamid ah waxa lagu baxnaaninayaa cusbitaalka Martini oo ah buqcada loogu talagalay dadka in lagu samata bixiyo ee cudurkan uu soo fasaaray iyadoo qofka kale uu ku jiro xarun caafimaad oo ku taal xirada Xalane wasiir Fawziya Abikar Nuur waxay ugu baaqday dadka inay guryahooda joogaan haddii aysan jirin arrimo muhiim u ah nolosha dadkuna ay kala fogaadaan ugu yaraan 2 mitir taxadar gaar ahna la sameeyo dhinaca kale war ka soo baxay maamul goboleedka Jubbaland waxa lagu sheegay 2 kiis oo cusub in cudurka coronavirus laga helay gudaha magaalada Kismaayo iyo deegaanada Jubbaland telefishinka dawlad goboleedka Jubbaland ayaa war laga sii daayay waxa ay soo xiganayeen wasiirka amniga Maxamed Warsame Ibrahim Darwish oo ah gudoomiyaha guddiga ka hortagga caabuqa corona ee deegaanada Jubbaland wuxuu sheegay in 2 ruux laga helay COVID-19 haddana lagu karantiilay cusbitaal ku yaala magaalada Kismaayo halkaas oo xaaladooda si gaar ah lagu la socdo labadan ruux weli ma aysan cadeynin ama wax wara kama soo saarin wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo arrimaha COVID-19 xoga ku saabsan la wadaagta maalin walba hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ugu dambeyn Soomaaliya ayaa waxa inta la ogyahay cudurka ugu geeriyootay 2 qof ha yeeshee warbixinta cusub ee soo baxday waxay muujinaysaa cudurka inuu sii xoogaystay oo uu ku faafay bulshada loona baahan yahay inay maqlaan shacabka Soomaaliyeed talooyinka caafimaad ee loo jeedinayo qaybaha hore ayaa daawanaysaan warbaahinta wararka maanta bal markan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ugu dambeyn magacaabis sameeyay waxaana la soo sheegayaa in magacaabistaas la sameeyay madaxweyne Qoorqoor uu sheegay in looga baahan yahay sidii ay u dhaqan gelin lahaayeen shakhsiyaadka ay qusayso wareegtada uu soo saaray dadka xilka loo magacaabay ayaa waxa kamid ah gudoomiyaha degmada Gurceel waxaana loo magacaabay Faarax oo kamid ah dadka sida weyn looga yaqaano deegaan ahaan gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada Gurceel oo gudoomiye laga dhigay wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Galmudug ayaana Faarax Cabdi Macalin Axmed gudoomiyaha degmada Gurceel loogu magacaabay Cabdishakuur Axmed Faarax Dhimbil gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga ee degmada Gurceel Cabdirasaaq Cabdullaahi Faarax gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo arrimaha bulshada waxaana madaxweyne Qoorqoor uu sheegay in looga fadhiyo in uu ka soo dhalaalo gudoomiyaha cusub ee xilka loo magacaabay degmada Gurceel kuna magac dheer Fatato in uu noqdo shakhsi xilka loo igmaday ka soo dhalaala dadka Gurceel ku dhaqan waxay sheegeen in Faarax Fatato ay rajo ka qabaan in horumarka degmada Gurceel uu ka qayb qaadan doono inta uu xilkan hayo dhinaca kale madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa wareegta ka soo baxday xafiiskiisa ku magacaabay xeer madaxweyne maamulka cusub ee gobolka Nugaal gudoomiyaha xilka loo magacaabay ee gobolkaas waa Cawil Axmed Maxamed
iyadoona gudoomiyaha gobolka Nugaal uu ka geeriyooday dhawaan Allah u naxariistay Cabdisalaan Goojer. waxaa Qaasim Maxamed Cabdi loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Nugaal, halka Xuseen Xaaji Cabdulle Maxamed loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Nugaal. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaana u rajeeyay madaxdan la magacaabay in ay ka soo dhalaalaan xilkaas loo igmaday, ceebna in uu Ilaahay kaga badbaadiyo ayaa loogu duceeyay xilka inta ay hayaan. qaybaha dambe ayaan soo gaarnay warbaahinta wararka maanta. bal markan dowladda Kenya ayaa 8 sano ka badan waxa la leeyahay saaxiib dhow waxay la ahayd madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Madoobe oo ay kaalmeynaysay 16 Oktoobar 2011 inta aysan Kenya gudaha u soo gelin Soomaaliya. waxaa la soo sheegayay in ay taageero muuqata u sameeysay maamulka Jubbaland. waxa ay olog hoose la ahayd senator Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, xildhibaan Cabdiraxmaan Aadan Ibraahim Ibi iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. sida ay u kala horeeyeen ayayna u kala muhiimsanaayeen. isafgaradka caanka ah ee Soomaaliya Kenya dhex maray markii la saxiixay 7 Abriil 2009 ayuu Cumar Cabdirashiid u fududeeyay damaca Kenya. 8 Abriil 2009 maalin kadib Ban Ki-moon oo markaas ahaa xogayihii guud ee qaramada midoobay ayaa u diray fariin uu ku wargelinayo Kenya oo inay u madax bannaan tahay diiwaangelinta xadka badda ay la wadaagto Soomaaliya, annaguna Soomaaliya ahaan aynan wax diidma ah ka qabin. Cumar dhambaalka waxa uu raaciyay isafgaradkii Soomaaliya iyo Kenya dhex maray. hase ahaatee dhanka marka la eego Axmed Madoobe iyo waliba saameyntiisa waxa ay ahayd wixii ka dambeeyay markii ay Kenya ay ciidankeeda ku taageereen Axmed Islaam Madoobe qabashada Kismaayo. intii Nairobi ay wada joogeen waxa ay dhowr mar kulamo la yeesheen Axmed Islaam Madoobe, Cabdirashiid Xidig, Cabdinaasir Seeraar Maax iyo Sheekh Daahir. ayaguna daarta aadan Falley ee qasriga madaxtooyada Kenya u jirta dhowr mitir ayaa marti Kenya ay ugu ahaayeen muddooyinkii dambe. Kenya waxa ay hortabinta u lahayd in Axmed Madoobe ka hor leexiso Xidig iyo Seeraar inta aan 8 Juun 2020 la gaarin, waana ay ku dadaalaysaa weli. 8 Juun 2020 oo hadda bil iyo 3 isbuuc kaliya ay ka harsan yihiin waxaa loo madlan yahay dhageysiga dacwadda Soomaaliya iyo Kenya dhex taalla ee maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ee cadaaladda adduunka magaalada Hague dalka Netherland. dhacdooyinka qaar marka ay dhacayaan way adag tahay in dadka oo dhami ay wada fahmaan sida xaaladdu ay tahay gunta xididada sida ay isugu haystaan. Axmed Islaam Madoobe ayaana hadda u muuqda mid taageero ballaaran ka helaya Kenya, sida la yiri laga horwareejiyay cid waliba oo loo arko in ay caqabad ku yihiin hanaanka maamul ee isaga hor yimaada. qodobka dibadda intaanu aadin wararka maanta ay la socotaan. bal markan wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa xilka ka qaaday agaasimihii barnaamijka dhaqan celinta ee isa soo dhiibayaasha shakhsiyaadka ka tanaasula fikradaha xagjiriinta ah ama argagixiso ee loo yaqaan DRB. ninkan waxaa lagu magacaabaa Maxamed Cali Xuseen. Master Xuseen ayaa xilka looga qaaday warqad wasiir Ducaale uu soo saaray 12 Abriil 2020 waxaana wararku qaar ay sheegayaan in xilka uu ku waayay isqabqabsi maamul. waa uu diiday sida wararka hoose la helayo mas'uulka xilka laga qaaday. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa amarka xilka qaadista Maxamed Cali Xuseen bixiyay. ila wareedyo ka tirsan wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa noo sheegay in sababaha xilka qaadista agaasimaha ay ku timid kala duwanaanshiyaha xagga maamulka oo ay isaga iyo wasiirka xiliyo kala duwan isku qabteen. waxaana inta xafiiska uu joogay uu ku guuleystay hagaajinta xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo maamul ahaan ay ku kala duwanaayeen mashruucan. shaqaalaha qeybaha xafiiska DRB waxaa ka jiray loolan xagga maamulka iyo waliba kala xadid la'aanta howlaha hortabinta u leh shaqooyinka wasaaradda. laakiin waxa uu qaatay go'aan geesinimo leh sida la leeyahay wasiir Ducaale. Maxamed Cali Xuseen oo kamid ah dhalinyarada farakutiriska ah ee dalka wax u soo qabtay ayaana waxa la leeyahay hadda dacwadiisa waxa ay gaartay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. lamana ogo xilka qaadista lagu sameeyay iyo diidmada uu ka keenay. halkaad warkaasi ka daawanaysaan waa warbaahinta wararka maanta. bal markan qodobka dibadda dowladda Sacuudi Carabiya ayaa ka mamnuucday warbaahinta laga leeyahay dalka Turkiga inay ka howlgalaan dalkeeda. waxaa kamid ah
wakaaladda wararka ee dalka Turkiga laga leeyahay ee Anadolu la yiraahdo waxaana dawladdu ay sheegtay in warar dhowr ah ay ama Anadolu Agency ay faafisay war-saxaafadeed ka soo baxay dawladda boqortooyada Sacuudiga ayaana lagu sheegay in warbaahinta dalka Turkiga laga leeyahay aysan gabi ahaanba ka howlgali karin gudaha dalka Sacuudi Carabiya. maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa isbuucii la soo dhaafay waxa ay aqbashay xukun la duldhigay 20 tuhmanayaal ah kuwaas oo la sheegay in ay ka qayb ahaayeen dilka loo geystay wariyihii Sacuudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi. gudahaan daawadeen intaaseen ku soo gabagabeynayna wararka Soomaalida iyo caalamka oo aad ka daawanayseen shabakada wararka maanta intaan wararkan oo kala dib isku arki doono nabadgelyo.